wararkii waxaan daawanayay TV-ga qaranka waxaan ka arkay warbixin uu sii daayay isku duwaha caafimaadka ee gobolka Maroodi Jeex kolay isku duwahaasi arrin faragelin iyo ku soo sameeyay maxay degmada Luqaya deegaana ka tirsan degmada Luqayana wuxuu ku sheegay inay hoos yimaadaan gobolkaasi uu isku duwaha ka yahay waan gartay kolay arrintaasi maxay deegaamada degmooyinka xuduudoogna waxay khuseeyaan oo wax ka kala sheegay hadii uu maran galo wasaaradda arrimaha gudaha iyo barasaabyada marka isku duwaha wasaaradda caafimaadka anagu kormeerkiisaasna hore maanaan ogeyn deegaankaasi uu yimidayna ma ahayn deegaanadii khuseeyay oo isagu maxay ma isku duwaha uu ka ahaa roosigan ay jirin waan gartay marka waxaan u aragnay in arrintaasi uu ninkaas maxay uu ku maleegayeen labada degmee Jaarqeeb waxaar iyo degmada Luqaya iskaga hor keeno oo maxay halka buuq kaga dhaliyo waan gartay gobolka Maroodi Jeexna uu leeyahay halkaas dadkiisii weeyaan meel uu bad ku leeyahay anagu bariga hore berberaan u naqaanay degmada kamid ahaan jirtay laakiin maanta gobol deegaho iyadoo badii gobolkaas saaxil buu u haray waan gartay meel uu badka ku leeyahayna deemo oogin oo ma jirto waan gartay markaasi dadka Soomaaliland maanta waxay u baahan yihiin cid isku toosha oo isku dhaweysay cid isku dirto kala kaxayso ma baahna waan gartay marka ninkaas isaga waxaan leeyahay horta waad riyoonaysaa waxaan leeyahay isaga riyada ka kac shaqadana sida maxay u bilow deegaanada kuwa simaadana iyo maxay iyo gobolada kale ee isku duwa sidaadan oo kala hoos tagayna kala garo takala TV-ga qaranka waxa weeyaan waa laan u dhaxaysa maxay dadka Soomaaliland oo dhan in waxyaabaha wanaagsan ee dadka isku soo dhaweynayeen inay sii deysaan qurux badan ma ahayn hadallada noocan oo kala ah ee bulshada buuqa iyo xiriirka ku abuuraya inay sii deyso marka TV-ga qaranka waxaan leeyahay inuu noqonin meel lagu qaybiyo degmooyinka dalka xukuumadana waxaan leeyahay mas-uulkaasi ka tirsan xukuumadda ka tirsan ee ku soo xadgudbay maxay xuduudda degmada Luqayaad ee gobolka ka tirsaneen ku sheegay meeshaasi wuxuu rabay arrin inuu ka dhaliyo maxay buuqa labada degmo walaalaha madax iskugu dhifto marka ninkaas waxaan leeyahay talaabada ku habboon in laga qaado mas'uul noocaas oo kale inuu arrinta noocan ah sameeyo kulay foolxumo ay tahay oo in dadkii iyo degmadii maamuladii la isku dhex galo dadka dad la isku soo jiida ayaa fiican laakiin in ma ahayn la isku diro deegaan aan ka tirsanin deegaanka uu joogo qofku ku sheego aan haddaan maanta ilaahdo waxay hoos timaadaa haddaan Dar es Salaam kulay waxay noqonaysaa hadal maxay qaloocan may noqonaysaa marka ma qurux badan hadallada noocaas oo kale ninkan waxaan leeyahay talaabada ku habboon laga qaado